wuxuu tiriyay 1 ilaa iyo 100,000 muuqaalkan waqti ahaan wuxuu ka kooban yahay 23 saac iyo 48 daqiiqo 23 saac yes brother 23 saac iyo 48 daqiiqo macnaha maalintu waa 24 saac Soomaaliya maalintii yaa waxa ka dhiman tahay 12 daqiiqo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome another wonderful video which is about maanta waxaan rabnaa inaan wax yar ka dhahno muuqaal Dirisla Cabdi soo dhigay oo 8,000 jeer baan Soomaaliya dhahay oo dadku aad ula yaabeen ma garanaysaa dadku aad ula yaabeen markay arkeen 8,000 jeer baan Soomaaliya tirahaa wala القالمات دهدي صلى الله عليه وسلم استغفر الله سبحان الله والحمد لله ما انت اسكو عليسي كومنتيga dhan saasay ahayd macnaha ani ahaan xataa muuqaalka markii koobaad aan arkay fikirkaygu soo dhacay saas waa walaal Muuse iska dhaho saasa uga fiicnayday niyadeedu soo dhacay ma garanaysaa marka kullu qof kasto aqli leh oo dhan positive wax keega iyo fikirkaas ku soo dhacay ama comment ku soo qortaya ama ku fikirtaya marka waxaan rabaa inaan idin leeyahay wadaago muuqaalka meeshu ka keenay aan dhaho macnaha fikirkaas meeshu ka keenay qofkii sameeyay qaabku uu sameeyay inaad ogtahay laga yaabaa inaad ogeyn laga yaabaa marka waxaan rabaa muuqaalkaas inaan la wadaagay diyaar muutina la wadaago of course dhaxay okay soo dhawaada way dad meeshan ku cusub tahay subscribe sar muuqaalkana like sar gacmaha la ku barakeeye gacmaha exercise u yeelaya gacmaha fuday horta muuqaalkan asal ahaan waxaa sameeyay in aad u taqaanaan Mr Beast la dhaho oo kamid ah youtuberada adduunka ugu subscribers ka badan so wuxuu sameeyay I counted to 100,000 macnaha wuxuu tiriyay 1 ilaa iyo 100,000 1 2 3 4 5 6 7 8 saas u tiriyay macnaha kow intuu ka qaaday yaa wuxuu tiriyay ilaa 100,000 gaarsiin fahmaysa waxaan ka wado kow buu ka qaaday 100,000 gaarsiiyay suuq uu waday marka muuqaalkan waqti ahaan wuxuu ka kooban yahay 23 saac iyo 48 daqiiqo 23 saac yes brother 23 saac iyo 48 daqiiqo macnaha maalintu waa 24 saac Soomaaliya maalintii yaa waxa ka dhiman tahay 12 daqiiqo maalin 12 daqiiqo dhiman weeye muuqaalka dhan ma aaminaysaa so sidee waxaan oo dhow ku dhacday muuqaalku wili soo muxuu ku dhax sheegay inuu muuqaalku 40 saac ku dhaafay oo uu edit gareeyo jarjaray speed galiyay waxay uu markii dambe ka dhigay 23 saac okay inta was la garanay muuqaalku 23 saac weeyaan wuxuuna soo dhigay 5 sano ka hor 2017 muuqaalkii uu saa ku sameeyay ayaa aad baa u cidna ma daawan markaas loo eego muuqaaladiisa caadiga ah 26 milyan baa daawatay kuwii sanadee 24 hours iyagoo gaarin hadda 26 milyan daawata so waxyaabaha aad aan ula yaabay waxa kamid ah Dirisla Cabdi waxaan markii u horeysay arkay waan qoslay aad baan qoslay wallahi runta fiican ma aad baan qoslay kana soo xasuustay hadda ka hor muuqaalkan waan arkay astaan muuqaalkii oo kale weeyaan laakiin dadka qaar waxa laga yaabaa 1 saac iyo la yaabaneen 1 saac ka koobnaa Soomaaliya sub 1 saac iyo 22 daqiiqo ayuu ka Dirisla Cabdi ka kooban yahay 1 saac iyo 22 daqiiqo ayay Soomaalidu daawanayeen way jiijidayeen aniga baan ku ka ahaadee waan jiijiideynay waxa meena ka daawan laakiin sawirabal 23 saac macnaha muuqaalkan intuu duubay isaga iska daa 2 maalin buu duubayba oo 40 iyo dhowr saac waa 2 maalin ma qofka daawanaya wuxuu u baahan yahay 23 saac inuu maalin kasta uu siiyo waqtigiisa dhowr saac oo kamid ah kadib uu 5 ama 6 maalin ku daawado كل يوم أسويدين إذا محاكا داوان إذا عضو كل لا صدق حبشن محاكا مداوان اسمه وير مينينج اللي ساعة وير أركيز عضو سيدات كم بو تربو لهاي سوماليا سيدات كم بعداوتي يا ويسلين يا مركا مركا سيقول في رسالة Dirisla Cabdi ورتو الدلالة يا رندا في عما
dadaalayaa sidii macnaha uu 1 milyan ku gaari lahaa u garanayaa toos buu hayaa balse dadka aad ninkan ula yaabay dadku aad waxay lahaayeen brother maadaha sallallahu alayhi wasallam 8 jeer taasa kaaga fadli badneed taasa kaaga ajir badneed sax 100% eegatan san kulli fahmi karno wuxuu isleeyahay Soomaaliya waan jecelnahay Soomaaliya dadka Soomaaliya ku nool ama dad soo ku soo jiido say dadku ay uga falceliyeen wayaan waxa kaaga fiicnaan lahaa adigoo sallallahu alayhi wasallam dhaha sababtoo ah qof kasta oo ku daawada waa qof Soomaali ah waa muslim gaal kuma daawado صح وتاس معناه waxay tahay instead of Soomaaliya dhahaysay hadad dhii lahayd sallallahu alayhi wasallam qof kasta leeyahay ku saar lahaa qof kasta community ma sha Allah ka bixin lahaa that's why sadrtu wuxuu dhici lahayn bas hadda 8 kuna ku daawatay hanta 8 kuna ku daawatay community dhanaab waa lagu rafaadiyay waxa uu yeeshay naasa dhahdo ma hayn bara so hala yahay dirsda cabdi hala yaabina ninka dirsda cabdi la yaabano muuqaalka noolaatan iyo 3 saac soconaya soo daawo orod inta muuqaalka tagtid commentiyada akhri 23 saac ilaahay baan ku dhaarshay bal si u yar fiiri koow intaad ka qaadid 100,000 gaarsi 100,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 waxaan idin dhihi lahaa dirsila cabdi hala yaabina macnaha wax macquul u sameeyay hal saac waa wax aad u yar marka 23 saac loo eego kaliya waxa ka qurux badnaan lahayd inuu sidaa dhaco Soomaaliya waxa dhahay way istaajisha marka dhanka positive laga eego Soomaaliya in la dhaho waa si wanaagsan because we are Somalians Soomaali baan nahay marka inkastoo laga ajir badnaan laga fiicnaa laga fadli badnaa marka si noo eego sina de ma xuma Soomaaliya waa wadankeena wuxuu dhihi lahaa Kenya may marka waxaan ku soo go'goynaya muuqaalkan intaas waxaan dhihi lahaa ninkan caadigu wax u wadaaye la yaabina muuqaalkaas soo daawo qofkii kan la yaabano aan kaga tagayaa muuqaalka xigeentan ku kulmayno bye bye